السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada waa markale iyo Minas Health. maanta waxaan idin la qaybsanayaa shaaha iyo waxtarkiisa iyo noocyada uu kala baxo. saddex shay ayaan ka hadlaynaa. saddexda shay waxa waaye shaaha noocyada uu qaybsamo, waxtarkiisa iyo shaaha ugu fiican. ugu fiican. horta saddexda nooc ee ugu waaweyn ee shaaha uu u qaybsamo waa shaaha guduudan, shaah cagaaran iyo shaah cad. saddexdaas ayaa ugu waaweyn. waxaa kaloo soo raaca herbal tea ama shaaha dabiiciga ah oo ayaamahan dambe aada usoo badanaya oo ah matcha tea ayaa kamid ah. waa mid isaguna aada cagaar u ah. iyo waxyaabahan kale ee la isku dardaray way badan yihiin. herbal tea-ga aada bay u badan yihiin, laakiin kuwa ugu waaweyn waa saddexda aan soo sheegay oo ah shaaha guduudan, shaaha cagaaran iyo shaaha cad. marka shaaha waxtarkiisu maxay tahay? waxtarka shaaha wuxuu horta shaaha ku fiican yahay, hataa oo kafeega kaga fiican yahay. shaaha kafeenkiisa ayaa yar haddii loo fiiriyo coffee iyo shaaha haddii la isbarbardhigo, shaaha ayaa kafeenkiisa yar. shaaha wuxuu yareeyaa halista ama riskiga heart attack ayuu yareeyaa, stroke ayuu yareeyaa, lafaha ayuu caawiyaa, unugyada difaaca ayuu adkeeyaa, baruurta ayuu shiilaa. shaaha wuxuu ka samaysan yahay wax la dhaho antioxidant. antioxidantna waa unugyada jirkeena oo ilaahay uu ku abuuray oo naga difaaca jirada badan, cudurada badan, dhaawacyada badan. adigu wax lama soo koobi karo. ilaah baa nagu abuuray jirkeena ayay ku abuuran yihiin antioxidantiga. anti waa wax laga hortago, oxidant waa maaragtay waxyaabaha jirka dhaawaca. so waxaa la dhahaa antioxidant. marka shaahan waan wada cabnaa, laakiin shaahee ugu fiican. shaaha ugu fiican waa shaaha aan lagu darin caanaha. sababtu maxay tahay? shaaha inta aan soo sheegay oo dhan oo caafimaad ah ayuu leeyahay, laakiin haddii caano lagu daro wax uu ku tarayo ma laha. especially haddii caano iyo sokor labadaba la iskula daro, wax uu ku tarayo ma laha. waa adoo biyo kulul iyo caano iyo sokor isku qasay oo kale. faa'iidadii antioxidantiga uu lahaa, strogii uu kaa reebi lahaa, lafihii uu ku adkeyn lahaa, heart attackii uu kaa yareyn lahaa, baruurtii uu kaa shiili lahaa, wixii oo dhan ma laha haddii caano iyo sokor lagu daro. sababtu maxay tahay? marka sababtu waxay tahay caanaha waxaa ku jira protein iyo fat, ama protein iyo baruur ayaa ku jirta, ama subag. brotiinkaas iyo subagaas isku jira haddii shaaha lagu daro, shaahay waxtarkiisu zero ayuu noqonayaa. marka shaaha waxaad ku darsan kartaa spice oo dhan oo ay kamid yihiin heylka waad ku dari kartaa, qorfaha waad ku dari kartaa, sanjabiisha waad ku dari kartaa, dhegayaraha waad ku dari kartaa. waxaan kale oo dhan jirka ayay u fiican yihiin. spiceka, all spices, spice wax la yiraahdo oo dhan jirka ayay u fiican yihiin. hataa joyceka midka la dhaho, kan oo xalwada lagu daro, heylka, qorfaha, sanjabiisha, dhegayaraha, waxaas oo dhan waa ku dari kartaa. laakiin caanaha haddaad hal mar caano shaah ku darto iyo sokor ku darto, shaahaas waxba kuuma taray. faa'iidadii aad ka helayd kama helaysid, wax uu kaa difaacayana ma laha. laakiin haddii aad rinjigiisa oo guduudan aad ku cabto, shaaha guduud ah haddaad cabto, maalin walba aad cabto, heart attackow, strogow, lafaha oo maaragtay oo daciif ku noqdo, waxaasoo dhan ayuu protection kaa siinaya. waxaad noqonaysaa qof lafihiisa adag yihiin. waxaad noqonaysaa qof hadduu maaragtay baruurta ay meelaha wadnaha iyo caloosha iyo meelahan gasha iyo dhiigga gasha ayuu kaa shiilaya, baruurtoo shiilaya. ilaa waa rinji. shaaha rinji aan dhahnaa soomaan, rinji ama shaaha bigays maala, bigays rinji. laakiin maalintaad caano ku darto wax uu ku tarayo ma laha. marka shaaha ugu fiican waa shaaha rinjiga ah. intaas ayaan idinla qaybsanayaa maanta. insha allah I hope inaad ka faa'iideen.
walaalahaaga u gudbi ehelkaaga u gudbi saaxiibadaada u gudbi la sheer garee insha allah waxaa idin soo wadaa barnaamijyo kale oo caafimaadka ka mid ah oo aada xiiso u leh insha allah waa inoo iyo next video insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.